سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أخيارتي قيمة يقدر انت مدنا ومالنما 4 أبريل لا يلحية تبنتها إلا بدا كوني شانية لباتنكا كسو دوادا وربحنادينا مانتان idinka iyo warbaahinta wargeyska City xubnihii hogaaminta sare deegaanka iyo xildhibaanada degmada Shiniila ayaa waxay booqdeen goobaha adeeg bixinta sida dugsiga sare ugaas Xasan Xirsi oo ay ka socotay nidaamka baris barasho iyagoo u kurgalayay adeeg bixinta goobaha si kala duwan heerka u taagan yahay maadaama waxbarashada sanooyinkii la soo dhaafay ay hoos u dhacday tayadeedii isla markaasina tiro badan oo arday ay meesha ka baxeen oo la waayay arday u gudubta jaamacadda waxaana xubnahani ay u kurgalayeen ardayda fasalka 12aad waxbarashadooda iyo sida dhiirigelinta loogu sameeyo halkaas oo ay guubjoog ka hayeen gudoomiyaha gobolka City mudane Ibrahim Xuseen Khayre wasiirka xafiiska caafimaadka Dr. Muuse iyo sidoo kale wasiirka xafiiska jidadka ee deegaanka mudane Idris Muuse iyagoo u kurgalaya ardaydan tayada waxbarashada ay qaadanayaan isla markaasina eegayay ardayda balaqoontooda iyo sidoo kale beeskooga sida uu yahay xildhibaan Cumar Cabdi ayaa kamid ah xubnaha dhinaca waxbarashada ardayda ka weydiinay waxyaalaha hoos u dhigay isla markaasina ay ardaydu waxbarashada uga caajiseen sanooyinkii la soo dhaafay si uu ogaado bal waxyaalaha sababta ay ka dhiganayaan ardaydaasi sidoo kale waxay ardaydani ama mas'uuliyiintan ka socotay heer deegaan ay galeen fasalada iyagoo soo indhaynay ardayda iyo goobaha waxbarashada sidoo kale waxa ay galeen goobaha ICT-ga ee dugsigaasi loogu diyaar galoobayo inay imtixaanka ku qaataan Dr. Muuse ayaa ka hadlay dhibaatooyinka waxbarashada iyo qishku markuu batay in ay noqonay jiil baaba'ay isla markaasina loo baahan yahay in ardayda lagu dhiirigeliyo dhinaca waxbarashada waa waxbarashada iyo xaalad hadda ay ku sugantay waqtiyadii hore waxaa jirtay eray bixin aynu lahayn oo la odhan jiray tacliinta bulshadu qaybaheeda kala duwan waxgarad hadday noqoto sheekh hadday noqoto waalid hadday noqoto aabiyo hooyo leh waxaa ilmaha lagu garab taagnaa inuu qayrkii ka sarreeyo waxbarto habeen iyo dharaar waxaa loo taagnaa in la helo jiil waxbartay oo wax maamuli kara muddooyinkii aynu soo marnay marka laga tago in ilmaha dharkii iskuulka ugu tegay uniformiga loo gado buugaantii iyo duruustii loo baahnaa loo diyaarsho waxay u baahan tahay in la ogaado ilmahan iskuulkii muu tagay mise ma tegay waxa muu soo bartay mise ma soo baray waxa uu soo bartay ma fahansan yahay mise ma fahansan dadaalkii loo baahnaa iyo kaalintii loo baahnaa ma galayaan mise ma galay muddooyinkii u dambeeyey waxaan leenahay door fara badan oo mudnaa in mudnaan gaara la siiyo lama siinin qish baa la bilaabay ardayda imtixaanka looga shaqeeyo qishkaa la bilaabay dad fara badan baa lugta ku lahaa macallinkaa lugta ku lahaa imtixaanka ka shaqeynay hooyada lugta ku lahaa iyadoo ardayga lacagta ka bixinaysa maamulka dugsigaa lugta ku lahaa u ogolay qishka in la siiyo dadkaasi marka ay wax bartaan ay nagu soo noqdaan waa dad wax bartay waxna aan barin waxaa kugu soo noqon injineer guriga uu dhisay uu kugu dumayo qabrigaaga noqonay waxaa kugu soo noqon dhakhtar bukaanku gacantiisa ay ku dhimato waxaa kugu soo noqon xeer ilaaliyaan kala saareen xaq iyo xaq la'aanta waxaa kugu soo noqon maamul garanaynin meesha uu u socday meesha uu joogo intaasi la saxo tayada waxbarashada in laga shaqeeyo waa muqaddas haddii aynan aagga loo shaqaynin aabbayaasheen iyo awyaasheen ay waxba aan baranin iyo waxbana aan qorayn waxbana aan akhrinaynin iyo kuwan wax qoraya la aaminsan yahay wax qorayn wax akhriyan waxba kuma kala duwanaanayaan balse garaadka dadka ay lahaayeen garaad ku hoos ay lahaanaya waa dadka aan rabin in loo sameeyo dadkaasi inama anfacayaan inayna anfacaynin hadda waxaynu ku aragnay guri aysan gelin tayo la'aanta waxbarashadu ma aysan jirto dad aanan ka garwaaqsanaynin in qishku uu yahay dulmina maanta miska ma fadhiyo
إن لا صحو لهجاجيو منانتي إلى هير لسيو دمانتين بينوتال sababtoo ah waalidku haduuna ilmihiisa dabageli marka laga tago in ilmaha la quudiyo dharka laga bedelo goor uu jiifsado loo dhiso garaadkii ilmaha in la dhiso oo wax la barana waa muhiim maadi hadday noqoto iyo diini hadday noqotaba waxaynu u soconaa inaynu helo jiil ina bedela oo bulshada u horseeda horumarka aan tabayno waxaynu ka cabanaynay معلنك يا أرضي واسمه فهميان وسيدي أول بقف لقد كلا فوها الله يا وحبرة قال يرتي إنه وأنا كبير معلمين وأنا الجيل كذا محبري كلام إنه وأنا إنه شرفت معلنك خروقات مركب مالي اللي هذا هو المعلم بون نقضي سيدي قرب قف أي بهول كنت انتو كلا الورقة مركب هبل قبل هبلاي معلمات بين نقطة وحلو أركب قف أنا شقهيسن garaadka caynkaas inta aynu badilayno macallimiinta hadda aynu ka cabanayno way joogayaan option kale ma haysan fursad kale ma haysan macallinku doorkiisa inuu qaato oo klaasyadii kabista ahayd ee hadda la diyaarshay sida loo baana ardayda uga hagarba maamulku inuu hagartiisii uu hagarbaxo in bulshada dabagalkii looga baahnaa iyo kormeerkii uu adkeeyo qaabka haddaynu shaqada u kala qaadano isku garbisano oon iscaawino waxaan aaminsanahay waxbarashada waxaynu ka tabayno waynu gaadhayna gacmo laaban hore looga mamacli xagla laaban xoolo kuma yimaadaan innagoo guryaha iska fadhina haddaynu rabno inay dhakhaatiir iyo injineero iyo computer science wax kasta xalinay iska soo baxaan ma soo baxayaan juhud iyo dadaal buu u baahan yahay waa in loo dhidido waa in waktiga loo huro waa in loo samro waddada aad ku jirto tubta aad qaaday hadday khaldan tahayna khadhaadhkeega waa in la qaato in la soco gobolkan waxaa lagu yaqaanay inay ka soo baxaan dhalin ku hubaysan xuduudda waxbarashada ha u dulqaadanina inay ku soo baxaan xuduud qish wax ku horumartay haddii kalese berri kamaale waxay noqonayaan kuwa idinka hagardaamada ina horseeda dadaalkaas in qaybeeda kala duwan la qaato oo loo hagarbaxo waa muhiim ka dawlad ahaan iyo ka xisbiga barwaaqo ahaan doorkii muhiimka ah waxbarashada waa la siiyey laakiin wax maalinka iyo 2 cisho 3 cisho ku saxmaya ma shaqooyin 10 iyo dhowr iyo 10 sano la soo duwiyey ayaa u baahan in dib u dhis lagu sameeyo dadaalkeeda ay u baahan tahay samirkeeda ay u baahan tahay hagarbixeeda u baahan tahay ka qodobka in saas loo qaato aan la rajo dhigin aan la moraal jabin laakiin maalin iyo maalinta ka dambeysaba lagu xisaabtamo maxay noo soo kordhay halkaynu soconnaa qaabkaasna wax ku sixi karnaa intaasaan yaan ku oran wixii dhanka waxbarashada ah arrinka dhanka caafimaadka muddooyinkii u dambeeyey xisbiga barwaaqo intuu talada dalka la wareegay iyo xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalidu marka laga tago tirada cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadka la soo kordhiyay waxaan oran karnaa aan ku dhiiranayna inay tahay markii ugu horeysay in la dhiso cusbitaalo tayadii loo baahnaa iyo darajadii loo baahnaa cusbitaalka guud ee magaalada Shineed adeegyada ay bixiyaan cusbitaalada ku yaala magaalada Hirshabeelle ama uu la siman yahay ama uu ka wanaagsan waxaan afkayna ku oranayna ma xuduudda xirfadlayaasha ee jooga qalabka caafimaad ee yaala iyo adeeg bixinta la bixinayo kuwa ugu wanaagsan buu ka mid yahay laakiin goob adeeg bixin ay ka socotaay daliilna way ka jiri khaladaadna way ka dhacayaan qofku haddii uu rabo inuu saliim noqdo oo waxba khaladaad aysan dhicin waxa kuugu fudud waa inaad fadhiga halka aad joogtaan aad ka kicin waxa ugu yar ee daliil kuugu noqonaysa hagardaamo noqonaysa torontora kula kulmi karta waxa la dadaalayo la daweynayo ma aha dad caafimaad qaba hadday dadkan caafimaad qabaan noloshoodu ay ladan tahay halkaa lama tegeen cusbitaalada dadka lagula tacaalo xaaladooda caafimaad way kala duwan tahay dad bukaan socdaa jira oo xaaladooda ay fudud tahay
dad bukaan jiifaa jira oo xaaladoodu meel dhexa ay tahay dad waxaa jira guryaha ICU-ga loo yaqaano ama xaalada daran naftooda lagula tacaalo oo noloshooda u dhaxayso geeri iyo nolol dadka lala tacaalaya ee xirfadlayaasha qayl wax lagu heli karo buuq iyo qayl wax laguma helo qof wax bartay oo garaad leh oo magaalo xadaarad leh magaaladii dhalinyarta magaaladii warshadaha magaaladii wax soo saarka ee degmada Shinile maamulka magaalada Shinile way noogna bayadaynu ku noolahay iyo garaadkaynu ku ay leenahay iyo tabashadeenu ay wada socon karaan marka qaabkaas in loo qaatayaan iyaan wixii dharkayga oo dhan soo dhaweyntiini soo bixiini la kulankiini mudnaanta gaarkeedna siiseen sidaad noo sharafteen Allah inii sharfan aad baad mahadsantihiin